salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan idilhaantiinba meel kasta aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka waxbarashada oo toddobaad kasta aad ka maqashaan warbaahinta caalamiga SBC annagoona maalinbaa meel diradda ku saarnaa Puntland oo ka mid ah meelaha ugu jaamacadaha badan dalka aqoon kornaanta dhinacyo badan loo tiriyo ayaa ahayd meel aan lahayn duruus cilmi oo laga raacdo oo gaarsan heer jaamacadeed oo aysan ka furnayn wax albaab jaamacadeed oo laga raacdo aqoon jaamacadeed balse xilligaasi ay jireen dugsiyo sare kuwaas oo ay dhigtaan tiro badan oo arday ah balse aysan u muuqan halka ay wajahayaan kadib marka ay qaataan shahaadada dugsiga sare xilligaasi aan tilmaamay oo ka marnayd Puntland jaamacada waxbarasho waxa ahayd xilli lugaha lagala sii baxayay dagaalo sukeeye oo ka soo butaacay burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya markay meesha ka baxday xasaatay wixii ka dambeeyay 2000 waxa dalka ka hana qaaday jaamacada gaar loo leeyahay kuwaas oo soo saara kaadar waxbartay dhawaan ayay ahayd markii jaamacada Badda Cas ay ka qalin jibiyeen arday taasoo maanta dulucda sheekadeena ama barnaamijka waxbarashadeena ku saabsan yahay in ka badan 150 arday ayaa xaflad sagootin ah loogu qabtay jaamacada Badda Cas kuwaas oo soo waday muddo 4 sano ah waxayna maanta ku faraxsan yihiin in ay soo afjaraan heerka koowaad ee waxbarashadooda balse waxa hubaal ah in aysan u ahayn jaamacada Badda Cas markii u horeysay arday noocan oo kale ay ka qalin jibinayaan laakiin waxaan meesha ka maqnayn in ay yihiin ardaydan in iyaga u tahay markii koowaad ay soo afjaraan heerka koowaad ee waxbarashadooda nasiibna u yeeshay waxbarasho ay muddo soo wadeen in ay maanta ay ka qalin jibinayaan Cabdullaahi Sheekh Xasan Cabdisalaan waa gudoomiyaha jaamacada Badda Cas waxa uu ka warramayaa aasaaskii jaamacadeed ee Badda Cas horena loogu yeeri jiray jaamacada Muqdisho balse laga bedelay sidoo kale waxa uu ka warramayaa goorta magaca laga bedelay iyo waliba sababihii keenay in la bedelo magacii hore ee Muqdisho ka daragsanahay 2008 baa laga furay magaalada Boosaaso iyadoo markaa lagu furay magaca jaamacada Muqdisho oo jaamacada Muqdisho oo ah jaamacadii ugu horeysay ee laga furo wadanka Soomaaliya burburka dabadii 1997 waxaana nasiib wanaaga inuu nala joogo gudoomiyihii u horeeyay jaamacada Muqdisho oo ahaa aasaasii jaamacada Muqdisho Professor Dr. Ali Sheikh Ahmed Abu Bakar inuu maanta nala joogo isagoo ka socda hay'ad kale oo madax ka yahay oo jaamacadda hadda madax ka ahayn laakiin wuxuu ku jiraa boorka sare ee jaamacadda Muqdisho ku jira laakiin jaamacadda marka waa dadkii go'aanka ka gaaray in jaamacaddan maadaama ay qaan gaadhay oo muddo shaqaynaysay in jaamacad gooniya laga dhigo loona bixiyo Bahrul Ahmar ama Red Sea University waxaa gaaray golaha sare ee jaamacadda Muqdisho oo xilligaas isagu ka mid ahaa go'aan ka gaaray waxaana magacii laga bedelay oo xasuusataan 2017 bishii 2 taqriiban hadda waxay sii cagacaynaysaa 3 sano ku dhawaad 3 sano waxa uga dhiman 2 bilood wax ku dhow taqriiban meelahaas ka dhiman marka iyadana farxad bay noo tahay amaanadiina loo dhiibay iyagu noo dhiibeen annagoo wadna oo aan ku takrifalin inay maanta nala joogaan oo nagala soo qayb galaan xafladda waan uga mahadcelinaynaa jaamacadda marka waxaan sheegnay 2008 in la furay 2008 hadii la furay waxa ugu muhiimsan wax qabad marka laga hadlayo jaamacaddu waxay soo saartaa dad bay soo saartaa hadda waxa laga hadlayay dufcaddii 8aad inay tahay waxay jaamacaddu soo saartay dad ku dhow 1500 arday oo qaybaha kala duwan ee bulshada ka falgala haday dawlad tahay haday private tahay haday business tahay qaybaha haday tahay international organizations iyo kuwa localka jaamacaddu dadka ay soo saartay bulshada ayay kaalin muuqata kaga jiraan waxaan rajaynaynaa inay sababtuna ay tahay manhajkii loo dhigayay iyo qaabkii loo barbaariyay iyo aqoontii loo huray inay tayadooda muujiyeen saasaan rajaynaynaa marka goob kasta oo tagto way joogaan haday dawlad tahay iyo haday tahay private kaba waxa kamida jaamacaddu guulaha ay gaadhay intii magaca laga bedelay waxaan isleeyahay waxaan sameeynay qismi research oo xoog badan oo ilaa hadda dadaalaya oo kulamo qabanaya oo beebaro soo saaray oo cilaaqaad sameeyay qismigaasi uu taabaqaday waana mas'uuliin bay leeyihiin dad ka shaqeeyay leeyihiin marka beebaray publish gareeyeen waa horumar ay jaamacaddu ku tallaabsatay jaamacaddu dhinaca kale waxay
samaysay maadaama magacii hore ay ka guurtay magacii hore jaamacad muqdisho cilaaqaadkeedu ilaa hal jaamacad markay ahaayeen cilaaqaadkii jaamacad muqdisho cilaaqaad u ahaa marka waa magac cusub waa wanqal cusub oo la rabo dadkana in la baro cilaaqaadna loo raadiyo marka cilaaqaad bay samaysay 3 sano ururo caalami bay ka mid noqotay jaamacado waaweyn bay cilaaqaad la samaysay arday badan bay scholarship u dirtay jaanibkaasna horumar fiican bay ka gaadhay waxay horumariyadana ka gaadhay in magacii hay'elay 8 sano ay jaamacad muqdisho ay magaceeda ku shaqaynaysay sidoo kale way adag tahay qof magacii laga bedelay in si dhib yar magac kale inta loogu bixiyo dadku ay la qabsadaan iyadana waxaan isleeyahay waqti bay qaadatay 3 sano waxaa laga shaqaynayay magaca jaamacadda badda cas dadka waliba gobolada Puntland maadaama gobolada Puntland jaamacadda ay ka tirsan tahay ama ay ku taalo in dadkii jaamacad muqdisho lagu shubo inta laga shubo Red Sea University ama jaamacadda badda cas lagu shubo waqti bay qaadatay walina waxba si yaray baan isleeyahay 20% dadku waxay ku leeyihiin ex muqdisho marka tiraado 20% baa si yaray waxay jaamacaddu ku guuleysatay arday badan arday taqriiban aan isleeyahay way badan tahay marka la yiraahdo waxa la qof inuu soo qaatay arday 10 ku dhow inaan u helay scholarship oo jaamacadaha dibadda ay ku soo diyaarinayaan iyagoo magac ay ku heleen uu yahay maadaama aan rabno magac inaan suuq geyno jaamacadda badda cas inay scholarshipkaas ku heleen way u badan yihiin wadamada Suudaan iyo Malaysia iyo Turkiga ay jiraan arday waxbarasho u aaday inay jiraan taasina waa guulayso jaamacadda u heetay waxa kale oo ay jaamacaddu ku dadaashay cilaaqaadka lagama raadiyo kaliya dibadda dalka gudihiisa institutionada jira jaamacadaha jira ururo jaamacadu ku midaysan yihiin baa jira jaamacaddu waxay ka mid tahay marka ururada hadday heer Puntland tahay iyo hadday heer Soomaaliya tahay heer Soomaaliya waxaa jirta urur la yiraahdo Somaliland oo jaamacadaha u waaweyn Soomaaliya ay ku midaysan yihiin taana nasiib wanaag sanadkan bilowgiisiba jaamacaddu ka mid noqotay oo ugu yaraan 10 jaamacadood oo Soomaaliya ku waaweyn ay ku jiraan oo ay helaan mashaariic ku saabsan dhinaca connectivity-ga ama internetka capacity-ga in kor loo qaado gobolkeena waxa ka tirsan BSU iyo bariga Afrika oo inala joogta hadda marka waxaan rajaynayaa taasina guul bay ahayd waxaa jira association jaamacadaha Puntland ay leeyihiin oo jaamacaddu ay ka mid tahay marka dhinaca heerka nationalka iyo heerka localkaba jaamacaddu waxay ka tahay qayb ka tahay ugu dambeyn markaan waxaan ku soo ururinayaa waxbarashadu ma dhamaato Soomaa aad haraadiyo waxbarashadu ma dhamaato habowdo ka hor yimaado jiray maalin baad helaysaa ha hilmaamin hanashada heestii ciyaaraha islaamkeenu wuxuu ina baray qofku inuu wax barto marka uu maadiga ku jiro laba qodob iraahdo madaxda ilaa uu xudka ka galo ka geeriyoodo inuu wax barto ayaa islaamkeenu ina faray gaaladu si kale u dhigeen waxay yiraahdeen qofku intuu nool yahay waa inuu wax bartaa marka waxbarashadu dhamaad male bilow bay leedahay waxaan rabnaa inaan soo dardaarano maanta waad qalin bedelateen idinku laakiin waxbarashadii meydaan dhamayn kowna ma joogto waxaa la rabaa in waxbarashadii la sii wado sidoo kale waxaa la rabaa maalgelin dhulkii dalka dadka beec mushtariga businesska waxbarashadii in la sii wado waa la rabaa waxaan rabaa inaan isku dhiirigelino waxaad barateen dalkiina inaad ugu shaqaysaan dal walba dadkiisa dhisa Soomaa dal walba yaa dhisa dadkiisa dhisa ma waxaynu sugaynaa inay dawladdu noo timaado oo dalkeena dhisto suurtagal ma tahay marka aqoonta aan baranay waa mas'uuliyad la saaray waa waajib aad qaadeen oo xambaarteen inaad dalkiina iyo dadkiina ugu shaqaysaan oo qofku uu ka fikiro maxaan dalka u qabtaa una ka fikirin anigu maxaan helaa kaliya uusan ka fikirin arrintaasi waxay nagu haysaa culays badan qofku markuu naftiisa kaliya ka fikiro horumar lama gaaro marka taana insha Allah waan rajaynaynaa waxaan ku kalmadeedii ku soo ururinayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay mar labaad mahad celinaynaa mas'uuliyiinta meelaha dhaadheer nooga timid oo Professor Ali Sheekh kamid yahayna oo safar dheer soo galeen waan mahad celinaynaa dawladda oo wasiiru dawluhu ugu horeeyay iyo gudoomiye kaxaynka gobolka iyagana waan mahad celinaynaa jazakumullahu khayran aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
cabdisalaan maxamed ciise salwe oo ku hadlayay afka jaamacadaha ahna aqoon-yahan Soomaaliyeed ayaa kula dardaarmay ardayda jaamacadaha dhamaysay inay cilmiga ay barteen uga faa'iideeyaan dalkooda iyo waliba dadkooda sidoo kalena waxa uu sheegay kulana dardaarmay ardayda jaamacadaha dhamaysay in ay iyagu la yimaadaan shaqo abuur ay naftooda iyo tan qoyskoodaba ay ku maareynayaan maadaama ay yihiin aqoon-yahano wax bartay muddana soo waday heerka waxbarashadooda ee jaamacadeed oo ka dhamaystir baa qalin jabin waxay noqonaysaa kaliya xilliyada waxbarashada darajooyinka hadba soo soconaya meesha gaarayso meel ka mid ah macnaha waa jaranjaro la fuulayo ardayda idinka sugaya inaad socotaan oo maadooyinka kale iyo xirfadaha kale loo baahanyaa inaad ku dartaan weeye ma aha inaad qalin jabisaan oo aad seexataan oo aad ka xirowtaan wax alla waxbarashaa macnaha waa qayb ka mid ah qaybihii weeye كلمة كسر الاستعمال قليل جميل. وحكروا مهم عن كلمة الدار يا أرضنا وحتى ذرية برلين صومالي ومدة صوماليين ومدة إسلام كا عرض تبوتلان معمول لها ومحتل لها وقبل لها والدين تي وحين الصوت ترتينا وهاد وحبو ترتان يو دين إسلام كا ومدة إسلام كا ابن آدم كا بالكسر الجو حل الكسار وين ومدة بري ما أنت بري حكومة ياتين وطريقية مثلا كسوقات كنت صلوا بقول صار كور إنت جوكتي ما أنت بجوكت أنا أقول فتاة وحنا نهتك جريش كسوس على سوق كوريا حتى جريش سوق جاري مركا نتك بديل الدورة وعيدك مركا حلك سعر قالوا كانوا حرام إلى كدروا وهو والدين تعالى هاي وأدبسنتي إلى هاي الكعب على يرو هوش عاد قبتين يقرشك يقرامها يوقتك يتوقعك يصبرك أتجلسين عروتنا وحن رجينا إني أبالقاسي بتخلي سوق شالو السياق وحن رأينا أن نوقف ضبط هذا ملاحظة قبلك يو دولة يو هو دقمة يو هو قيبتن هو بيزنس كي أردنا تنصاب بحذي وحيدون يال نورل شقو وحباي برتين ومدة إني وقبتان وشقيان فلان اسكو داينا فرصة سيسان فرصدها سواء فرصة شغو سيدو كان فرصة مالجلين ما تعاو عبر سكارهان ومدة هير كستحال نقطة هير دقمة هير قبل هير تولو هير قرن هير مالك سوى جارسان اسكو داينا مالجلين سميسان كو سميسان وايو دي بهذا الله ايغو سوق بوساسو وعمران سوق عمري لكن عمرات تكو عمري ذات في السنة دور جروان تجي أنا بعرف كسبنا عليه كو حتى أنا متقال وقابلني وحنا أرينا وحوي الله وحيال حق الصناعة هل شيء حق عافيماتك لما صار حتى عندي لا كير كسماء يوم ما صار لا كير كبجت وهم حي فنعل باوير فنعل وتبدل ولا كير وحكروا عجيبة برك أي الروتي كسمة صنو وحنا ولا كير تبد بريسك باستلا وحكروا عجيبة وطبيعات أولينا تلا عادي حتى قارة أفريقيا تكتب وحبة المراكين waxay isticmaalaan ugaali wax la yiraahdo waa soorta waxay isticmaalaan muufa isticmaalaan matooke ugaaliska aad isticmaala waxa la isticmaalaa cuntada digirta xogta oo digirta koonfurta aad looga cuno inagu kibir waxaanu gaaray inaan aanan cunin oo inuu ka faano ku cunno baasta iyo bariis wax dooda laga keeno marka saan u dhicin ardayda waxaan kula ku xoojinaynaa dawladda iyo muxuu ahaa madaxda mas'uuliyiinta kula isku day inaad toosaan oo aad saxdaan maalgelin ku samaysaan dadka sida tujaarada ana maalin kursi kale ku sameeyo waayo qodobkan saxraan la hadalna hadalka badsho ujeedada macnaha ana ugu halkan oo ugu miibsan baa waxay tahay waxyaabaha dhacay qaranka Soomaaliya marka dib taariikhda loo raaco markii 60kii xorriyadu qaadatay Soomaaliya waxay u istaagtay dagaal waayo shantii gobol baa loo qaybshay ummadii Soomaaliya waxay u istaageen inay dagaal u istaagaan dhulkii la googooyay isticmaalka googooyay taa maxay keentay siyaasaddaas waxay keentay inay laga goyso dawladihii kapitalistaha ahaa maalqabeennada ahaa waayo waddanka waqtiga hadda xoogaa inkastoo isbeddel dhacay waxay u kala qaybsaneen xilladaas aan sheegaya laba qaybood bidix iyo midig ama kapitalista wax loo yaqaan iyo shuuciyadda wax loo yaqaan shuuciyadda waxaa hogaaminaya raashka kapitalista waxaa hogaaminayay dawladaha ingiriiska iyo maraykanka baa hogaaminayay oo hogaam u ahaa waxay keentay marka dawladda isticmaalkana iyaga ahaayeen waa laga tagay yaa inoogu soo haray marka maxay noqotay marka dawladdii Soomaaliya waxay noqotay waxa cidda kaliya
wax ka qabata dalka wax la siisa lana shaqaaleeyo madal ka soo kacaankii dhexsaalkii ilaa burburka uu dhimaanayo ballan waxay ahayd ardayga jaamacad iskuulka sare dhammaanaya haddee waa full ama shaqo in la siiyo ama la siiyo muxuu ahaa waxbarasho dowladda kama bixi karo taa lafteeda qiyaalina ma ahayn daladaal bay ka ahayd laakiin hoog iyo halaag bay ahayd madal ka soo qaad adduunyada kale ingiriiska yurub ameerika meel kastoo aad tagto ardayga soo bax garantii ma jiro shaqaysaan le xoogsan laakiin yuu ka xoogsanaya dowladda maaha dowladdu ma aha waxa keliya oo shaqaaleeya dadka kambaniyaa jira ilaahay soomaaliya marka kambani maana lahayn sababta keentay kacaankii iyo dowladihii siviilanka ahaa inay investment aysan dalka gobolladaas madal ka soo qaad gobollada hadda aynu joogno madaxdii ugu sarreysa soomaaliya waxay ka soo bixi jireen gobollada qalro boosaaso isku shuban gaalkacyo garowe ka soo bixi jireen wasiirro wax alla wixii prime minister ahaa واحد مال قلب دلك ما يسوي ما هاينين ما ها كرت حما كاهي ديبان ما جري نقال waxa ay haystaan ma jiro ay wax maalka shaqo maanta se resource waxa la helaa dibadda waxaan ku soo koobaya inaan hadalka badsho ma jecli waxaan xusayaa wali mas'uuliyiinta hadda halka fadhida iyo inta maqan oo aqashara isku daya fadlan inaad xoojisaan maalgelin dhulkii dalka dadka beecmushariga businesska shirkadaha halka ka magacaaban qaarkood calaamad halka yaalana idinkan isku daya inaad abuurtaan kana faa'iidaystaan xirfadaha aqoon-yahanada mad jooga xagga sanacada xagga caafimaadka xagga businesska xagga wax kasta waxbarashadu way waa ayaa ardayda qalajabinaysa fadlan isku daya xoojiya idinkuna xoojiya fariin aan fariyo way anagu kaliya ku hadlay magaca muxuu ahaa jaamacadaha